بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لها يجر هاي الأرحباء دت كان إسكو ديت النهاي إسكو دير كأنو النهاي إسكو دل كأنو النهاي إسكو دت كأنو النهاي مركا أوجه رئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka labaad runtii waxaan rabnaa inaan hambaliyo iyo boogaadinba labadaba aan u dirno si guud ahaaneed xisbiga ARD si gaar ahaaneedna gudoomiye aadan maxamed cabdu iyo guddigiisa soo qabanqaabiyey ee ka soo shaqeeyay kulankan labadaba waxaan ka leenahay waa mahadsantihiin walaalayaal maanta waxaynu xusanaa 3 dhacdooyin oo taariikhda dalkeena ku sutan oo meel xun kaga yaal oo naxdin leh oo qalbigeena ku jira welina ku qoyan qalbigeena ku qoyan baynu xusanaa waxa weeyi 3 dhacdooyin oo kala ah ugaadhsigii ula kacaha ee Café de Paris weerarkii Arxiba iyo weerarkii Buldhuqo ay dhammaantoodba dhimashooyin badan iyo dhaawac badanba ay maxay ahayd ay ku yimaadeen dadkii dhintay waxaan leenahay Allah u naxariisto kuwii kalena waxaan leenahay qalbiga adkeeya xaqiiqada iyo cadaaladuna ma iman waayso way hadda way soo dhowdahay waana heli doontiin baan leenahay insha Allah maanta bishu 18 December 2025 waa maalin runtii barordiiq ah waa maalin xasuusin ah waa maalin inaynu muujino ay tahay diirnax sokeeyanimo aynu muujino ay tahay weeyi waa maalin ku weyn dadnimada qof walba amba ka noqoto dhibanayaasha ku jiro amba miyaanu ku jirine damiirka qof walba maalin ku weyn weeyi walaalahayo marka waxaan leenahay hadda dadka laba dulmi baa laga galay waa la laayay waa dulmiga koowaad dulmi labaad baa laga galo waxaanu leenahay qoysaskii dhibanayaasha ahaa weli hadda cadaalad ma helin dhacdooyinka weli run lagama sheegin dhacdooyinka eedanayaashii maxay ahayd lug ku lahaana weli maxkamad madax bannaan lama horkeenin waxaan leenahay 3daaba insha Allah waa naga heli doontiin baan leenahay walaalahay dadku iyo dalalku waxay leeyihiin taariikhdaasi mid madow iyo mid qurux badan ba noqotee laakiin waxay ku dadaalaan taariikhdooda inayna daboolin ayay ku dadaalaano oo taariikhda buugaagta taariikhda ee caruurtooda iyo jiilalka dambe ayay ku muujiyaan waxay ugu muujiyaan kow si ay u ogaadaan waxay ugu muujiyaan markay ogaadaan si ay digniin ugu noqoto waxay ugu muujiyaan taariikhda si ay ugu baraarujiyaan xumaanta ay leedahay dhacdooyinkaasi marka annagu waxaan leenahay nidaamkaasi markaaynu eriyano waynu eriyanaynaa waa hubaale waxaan leenahay inaanu taariikhda buugaagta caruurteena kooleeshka amba maxay ahayd liiseega lagu soo daro si ay u ogaadaan wixii foolxumadii halkaa ka dhacday iyo kana baraarujin ay u noqoto ayna maxay ahayd war loo hayo laba waxaan leenahay markaynu caymadino waynu caymadin doonaaye in taariikhyada 3 dhacdooyinba ay dhaceen laga dhigi doono taariikh maxay ahayd sutan oo lagu xusi doono sida caalamka loo xuso waa ogtiin baa u maleynayaaye taariikhda waxa la waxeeyaa journée la xuso maalin la xuso 3 maalmoodna waxaan ka dhiganaa taariikhda inay galaan si loo xuso ayaan ka dhigi doonaa nidaamkan inaan iska rixno un baa inoo haysa insha Allah walaalahay sidaa uu walaalkay Daahir Axmed Faarax inoo soo sheegayay nidaamkani hadduu bararay u naaxay waa inaka awgeed ku naaxay wuxuu u naaxay oo u bararay wuu ina kala qaybiyo wuxuu inagu kala qaybiyay waa qabyaalad buu inagu kala qaybiyay runtii oo imika waxa cajiiba oo de soo baxday wasaaradii dawlad matali lahayd ee qaran u shaqayn lahayd waxa lagu oranayaa wasaaradda waa wasaarad hebel baa lagu oranayaa ninka hebel iyo gabadha hebel wasaaradda ku eekaadaan oo ha tagaan baa lagu oranayaa waa mucjizo wallahi xaraam
wuxuu ku dadaalay uu ku bararay uuna maxay ahayd ku naaxay nidaamkani inuu ina kala shakisiiyo waxaad arkaysaa laba kaartiye ku soo wada koray ku soo barbaaray soo wada ciyaaray guri midata wax ku soo wada cunay markay rabaan wax duca inay ka sheekaystaan inay kala shakiyaan oo ay ula tagaan sheekada ka isku helihiin ma hada reer fogtay ka isku jirib yihiin ay ula tagaan halka baynu soconnaa walaalahaygiyo wuxuu nidaamkani uu ku bararay uu ku naaxay ee kale walaalahaygiyo qof walba oo runtii aragtida gabowday ka hor yimaada oo aragti cusub keena wuxuu ku tilmaamaa waa cadowga dadka iyo dalka runtii cadowga dadka iyo dalku waa isaga weeyi wuxuu ku bararay uu ku naaxay kale walaalahay nidaamkaasi inuu daacadnimadii iyo wanaaggii uu ka dhigo nacasnimo inuu ka dhigo oo khayaanada uu maxaa ka dhigo wax lagu faano hadda waxaad arki oo inagu cusub oo dadkeenii dee hore ay garanayn nin amba gabadh aad ku taqaanid diin oo masaajidka markaa gashid liinka hore kaaga horeynayaba kii qur-aankii sidee u dudubinaya ducada markaad ducaysanaya aragtay siduu u khushuucsan yahay aad arkaysid ku tuhmasid diin ku tuhmasid aqoon ku tuhmasid da'annimo aad ku tuhmasid ayaa intuu mikrofoonka soo qaato ku soo hor joogsanayo siisiye monda iyo shakhsi keliya mooye cid kala hadalhayn waa xaaraam waxaasoo kale wuxuu ina tusayaa garaadka halkuu gaadhsiiyey nidaamkani waa innaka markaani leenahay waa garaadkeenii buu halkaa gaadhsiiyey nidaamkaniyo oo runtii waxa cajiiba in qofka intaa leegi uu kala saari waayo qaran iyo qof qarankii baa la qofaynayaa oo dantii guud ee qofku uu heli lahaa uu qaranka ka heli lahaa waxaa laga dhigayaa qaranka dantiisu inay qofka ku jirto waa danta qaran qofku ma jiro qofka qaran dantiisa qaran danta qaran buu ku jiraa baa leenahay marka hala kala saaro shakhsi dhiman doona iyo qaran daa'iman jiri doona labada hala kala saaraan leenahay walaalay waxay Soomaalidu tiraahdaa la yiri nin ay u caddahay meel kali ka madow waa la yiri meel kali ka madow waa la yiri oo runtii nidaamkan waxa u cad siduu u sii joogi lahaa kursiga ugu waari lahaa oo yaa u cad maxaa ka madow hore mar baa ka madow waxa ka madow ummadda wanaaji baa ka madow noole ummadan baa ka madow ummadaada barwaaqe dalkaaga barwaaqe waa ka oo maxay ugu madow marka uu daahir inaga leeyahay innaka iskugu wacan walaalahaygiyo bal su'aalhayni weydiiyo kala qaybsanaantaasi maad u malaysiin inay isaga u faa'iideyso iyo inay innaka inoo faa'iideyso isaga u su'aal baa ni weydiin meydka iyo iilka ma la kala qaadi karaa meydka iyo iilka lama kala qaadi karo